dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha maanta waxaan ku soo qaadan doonaa wararka suuqa kala iibsiga kulamada xalay ilaa iyo shalay la ciyaaray iyo kuwa caawa ciyaari doono iyo waxay habeen ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ayaa barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa haddaan ugu dagalno barnaamijkeena waxaa shalay wada ciyaaray kooxda Chelsea iyo kooxda Leeds United ciyaartooda ku dhamaatay 3 iyo waxba guul daro loo saariyay kooxda Chelsea markii qaybta koowaad la marsiiyay 2 iyo eber ayaa markii ciyaarta dib loo soo laabtay goolka saddexaad laga dhigay kooxda Chelsea markii gool laga diiday kooxda Chelsea uu dhaliyay xidigooda Raheem Sterling ayaa waxa garoonka ka baxay xidigooda dhawaangalka ah kooxda Chelsea lagu magacaabo Duke Kulibali markuu qaatay red card ciyaarta Chelsea Leeds ayaa ku soo dhamaatay 3 iyo eber guul daro loo saariyay kooxda Chelsea sidoo kale kooxda Man City iyo kooxda Newcastle United ayaa ku wada heshiiyay barbaro 3 iyo 3 ku kala baxay sidoo kale kooxda Bayern Munich ayaa ku badisay 7 gool iyo eber markii uu dhaliyay 3 gool xidigooda cusub ee kooxda Bayern Munich ee lagu magacaabo Sadio Mane ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 7 gool iyo eber ee guusha ku raacday kooxda Bayern Munich sidoo kale kooxda PSG ayaa xalay dhalisay 7 gool iyo gool uga badisay kooxda Leeds lagu magacaabo Lille markii saddexda weerarka ee kooxda PSG ee lagu kala magacaabo Neymar iyo Mbappe iyo xidiga lagu magacaabo Lionel Messi ee dhaliyay xalay goolal ayaa ciyaarta ku soo dhamaatay 7 iyo 1 ee guusha ku raacday kooxda PSG sidoo kale kooxda Barcelona ayaa 4 gool iyo eber iyo gool uga badisay kooxda lagu magacaabo Celta Vigo iyadoo xidigooda lagu magacaabo Lewandowski xalay soo bandhigay ciyaar fiican sidoo kale caawa waxa ciyaari doona kooxda lagu magacaabo Juventus iyo kooxda lagu magacaabo Sampdoria ayadoo ciyaartaas caawa 3 saac ay bar la daawan doona sida kooxda West Ham iyo kooxda lagu magacaabo Brighton ayaa hal ciyaaray iyadoo 2 iyo 1 ku badisay kooxda Brighton sidoo kale kooxda Manchester United iyo kooxda Liverpool ayaa caawa 4 saac wada ciyaari doona wararka suuqa hadaan ugu dagalno kooxda Manchester United ayaa weli raacdo ugu jirto xidiga lagu magacaabo Antonio sidii uu keeni lahayd garoonka Old Trafford ayadoo ka gudbinaysa dalabaad ayadoo kooxda aysan doonaynin inuu ka baxo xidigooda lagu magacaabo Antonio kooxda Man United ayaa sheegtay inuusan ka bixi doonin xidigooda Harry Kane xidigooda lagu magacaabo Harry Maguire ee kooxda Manchester United kabtanka u ah ayadoo sheegtay kooxda Chelsea u sheegtay inaysan doonaynin inuu ka baxo Harry Maguire kooxda Man United macalinka kooxda Liverpool ayaa sheegay haddii uu baxayo xidiga Naby Keita wuxuu yiri bedelkiisa ayaan raadsan doonaa haddii uu joogayna waan ku faraxsanahay ayuu yiri macalinka kooxda Liverpool Jurgen Klopp kooxda Liverpool ayaa la sheegay kulanka caawa Manchester United ay la ciyaaraysa inuu taam u yahay xidigooda Roberto Firmino ayadoo shaki la gelinayo inuu caawa ciyaari doono xidiga lagu magacaabo Diego Jota kooxda Liverpool ayadoo 3 kulan ugu maqan yahay ganaax xidigooda Dana Nunes fadlan hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-keena xogta ciyaaraha dunida fadlan subscribe inoo saar dambaleel kala furo si ay